waxaa maanta magaalada Garowe ee caasimadda dowladda Puntland lagu soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga Hayaan Cabdi Xabiib Yaasiin Warsame oo ka soo kictimay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan caasimadda dowladda Puntland ee Garowe. Haddaba waa kuwan qayb ka mid ah shacabka ka qayb qaatay soo dhaweyn hoggaamiyaha xisbiga Hayaan. annagoo ah dhalinyarada gobolka Dhugaal waxa baata farxad diiran oo ah inaan soo dhaweyno gudoomiyaha xisbiga Hayaan Cabdi Xabiib Yaasiin Warsame. aad bay farxad weyn noogu tahay maadaama aynu nahay dhalinyarada sportska gobolka Dhugaal. waxaan leenahay mudane gudoomiye soo dhawow ku soo dhawow magaaladaadii. waxaa maanta farxad weyn inaan soo dhaweyno gudoomiyaha xisbiga Hayaan Xabiib oo ku soo dhaweyno magaalada Garowe. waxay noo tahay farxad weyn ku soo dhawow gudoomiyaha. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaa sharaf weyn inoo ah oo maanta soo dhaweynayna gudoomiyaha xisbiga Hayaan Xabiib. meesha taagana waxa weeye garoonka weyn ee Garowe duleedkeeda. runtii si farxad bay noo tahay. waxaan ku soo dhaweynaynaa waxaan leenahay mudane gudoomiye soo dhaweyn kadib gudoomiyaha xisbiga Hayaan oo saxaafadda la hadlay ayaa ugu horeyn u mahad celiyay dadkii soo dhaweeyay isagoo faahfaahin ka bixiyay ujeedka socdaalka safarkiisa oo ku soo gaaray caasimadda dowladda Puntland ee Garowe. bismillaahir rahmaanir rahiim. aad waxaan ugu faraxsanahay maanta oo taariikhdu ay tahay 13 bisha January inaan ka soo degno magaalada Garowe. aniga oo matala xisbiga Hayaan iyo xildhibaano matala shacabka Puntland oo matala dowladda federaalka. marka hore waxaan rabaa anoo ka faa'iideysanay chanceska inaan u mahad celiyo shacabkii sida sharafta la meesha noogu soo dhaweeyay. waa ka xunaa inay maaragtay diyaaraddu xoogaa dib u dhacdo idinka soo daahna aad baan uga cudur daaranaynaa arrintaas. waa idin mahad celinaynaa 100 mar baan idin mahad celinaynaa. shacab waliba maaragtay ka kooban dhalinyaro iyo xildhibaano iyo maxaan ku yiraahdaa madax kamid ah dowladda Puntland. taas markaan ka gudbo halkaan waxaan u nimid magaaladan booqasho gaaban oo aan jecel lahay inaan la kulanno bulshada ay ka kooban tahay Puntland. waxaan halkaan u nimid oo safarkeena ugu weynaa wada tashi inaan shacabka la tashano saa ka warqabtaan doorashada ka dhacda Soomaaliya 4 sano hal mar baa dhici doonta 4 sano waxaa ka haray muddo gaaban baa ka hartay. marka waxaan rabnaa inaan shacabka iyo siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka iyo dawladda intaan ka gaari karo aan aragno aan kala tashano doorashadaas ay noqon doonto. doorashadaas wada tashkaas kadib waxaan u gudbi doonaa magaalooyinka kale oo ay ka kooban tahay Puntland. waxaan tagi doonaa Gaalkacyo, waxaan tagi doonaa Boosaaso, Qardho, Garaacad, Jariban iyo magaalooyin kale. kadibna anigu waa ka sii gudbi doonaa waxaan u gudbi doonaa gobolka Jubbaland magaalada Kismaayo khaas ahaan baan tagi doonaa 23 bishan. safarkaygu markasta wuxuu ahaan doonaa inaan maadaama la yiri waxa la aadayaa doorasho hal qof iyo hal coda oo Soomaaliya laga yaabo inay u gudubto xisbiyo barnaamijka asxaabta badan. waxaan rabnaa inay shacabku ku darsadaan waraahdooda iyo waxay la tahay sababtoo ayaga dooran doona dawladda soo socota hadiiba loo gudbo barnaamijka noocaas ah. annaga xisbigan wuxuu u taagan yahay shacabka Soomaaliyeed baa iska leh, hooyooyinka Soomaaliyeed baa iska leh, dhalinyarada iska leh, idinkoo dhan baa iska leh. marka halkaan waxaan sidoo kale dadka kala tashan doonaa markaan u soo bandhigno xisbiga mabaadidiisa. waxaan weydiin doonaa inay xisbiga qayb ka noqdaan haddii Ilaahay yiraahdo. waa mahadsantiin. qayb ka mid ah xildhibaanada la socday hoggaamiyaha xisbiga Hayaan ayaa ka warbixiyay socdaalkooda ay ku soo gaareen magaalada Garowe. magacayga waa xildhibaan Xaawi xildhibaanada golaha shacabka ka mid ah. farxad bay noo tahay deegaankayagii inaan nimaadno deegaan doorashadayadii ah. waxaan rajaynayaa inaan gaari doono degmooyinkii iyo gobolladeennii iyo degmooyinkeenii insha Allah kuwaasoo runtii aan in badan ku soo noqnoqdo marar badan imid. la tashiga iyo hadafka aanu ka leenahay siyaasadda la tashiga ku aadan oo shacabka iyo bulshada iyo soo bandhigida
nidaamka maanta dawladdu isku bedeshay qorshayaasha cusub iyo tallaabada hore loo qaaday naftirkeeda meelaha la maray waxyaabaha la haaminayaan inaanu gaarsino shacabka oo aan aragno mas'uuliyiinta ugu sareeyo Puntland waxaana Puntlandays inta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qaas ahaan bulshada aan reer Puntland oo aan ka tirsanahay maanta waxaan soo booqanay magaalada Garowe anagoo oo kala ah different xildhibaano siyaasiyiin shacab intaba waxaan u nimaadnay inaan u kura galno xaaladaha deegaanka inaan la kulanno madaxda sarsare ee dawladda inaan la kulanno maxay heetole dhaqanka inaan la kulanno bulshada anagoo iska wareysanayna arrimo badan mid siyaasadeed iyo mid deegaanba waanan insha Allah waanan gaari doonaa gobolada noo dhiman anagoo wada soconay insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim waxa la dhahaa xildhibaan Deeqa Saciid waxaan ku faraxsanahay in maanta deegaankii aan soo booqday waxaana aan isla soconay xildhibaanada waxaana u nimi la tashi siyaasadeed iyo inaan aragno odayaashii iyo bulshadii iyo maxalli jiray siyaasiyiinta saan wada tashan